saraakiil ka tirsan sirdoonka qaranka dalka Mareykanka ee CIA-da ayaa dhibaatooyin baasan waxa ay ka geysteen dalka Kuuriyada Koonfureed halkaasi oo uu ku sii wajahan yahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Joe Biden waxaana xiriirka labada dal uu gaaray heer aan la saadaalin karin maadaama saraakiishan qaarkood lagu eedeynayo in ay ku lug yeesheen arrimo sirdoon. Laba nin oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa la saaray diyaarad dib ugu celisay dalkooda kadib markii ay ku lug yeesheen muran buuq dhaliyay oo ka dhacay Kuuriyada Koonfureed. raggaani oo qayb ka ahaa wafdi hordhac u ah madaxweyne Joe Biden kuwaasi oo kasii hormaray Kuuriyada Koonfureed oo dhawaan la filayo madaxweynuhu inuu booqasho ku tagayo ayaa waxay cabitaan u doonteen baarar kala duwan oo khamriga laga cabo sida ay tabiyeen warbaahinta Mareykanka iyadoo sirdoonka Kuuriyada Koonfureedna aysan ka warqabin dhaqdhaqaaqa kooxdan. mid ka mid ah labada xubnood oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka waxaa la sheegay in muran gacan ka hadal watay uu la galay darawal taksi oo maxalli ah halkaasina dhibaatadu ay ka bilaabatay kolkii hore. ma jirin cid la qabtay ama loo xiray arrintaasi balse booliska magaalada Seoul ayaa waxa ay baaritaan ay ku sameeyeen dhacdada waxayna tilmaameen in arrinkani uu yahay mid tuhun badan uu ku jiro. hay-adda sirdoonka ayaa waxa ay ka warqabtaa dhacdadan aan shaqada ku saabsaneen kuwaasi oo ku lug yeesheen laba ka mid ah shaqaalaheeda taasi oo noqon karta ku xadgudub nidaam ayuu yiri afhayeen u hadlay laanta sirdoonka Mareykanka oo bayaan soo saaray. hase ahaatee arrinkaasi waxaa ka biyadiiday sirdoonka qaranka dalkaasi ee Kuuriyada Koonfureed waxaana la tilmaamay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka dhibaatada gacan ka hadalka ee taksiilaha ay u geysteen inay ahayd mid fudud marka loo eego sida loo safriyay. arrinkani mugdi badan ayuu dhaliyay waxaana la ogaaday in kulamo qarsoodi ah ay kula yeesheen xubno aan la magacaabin baarar ka mid ah kuwa lagu caweeyo ee tumashada iyo tamashlaynta loo tago gudaha magaalada Seoul ee caasimadda ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. waxa uu sargaalka ka tirsan Mareykanka uu sheegay in labada nin ee shaqaalaha ahba loo diray fasax uu maamulku ka warqabo maqnaashiyahoodana uusan saameyn ku yeelan doonin safarka madaxweyne Biden iyo xiriirka labada wadan. Mareykanka iyo hay-adda sirdoonka ee CIA-da waxay ku doodayaan in saraakiishani iyo shaqaaqada ay galeen inay ahayd mid shil ah oo aan wax siyaasad iyo arrimo sirdoon toona aan la kulahayn. socdaalka madaxweynaha Mareykanka uu ku tagayo Seoul ayaa noqonaya lugta koowaad ee booqasho 4 maalmood ah oo uu ku marayo dalal ka tirsan qaaradda Aasiya xilli gobolkaasi uu ku sii kordhayo walaaca laga qabo awoodda militari ee Shiinaha iyo sidoo kale tijaabooyinka gantaalada oo ay sameynayso xukuumadda Kuuriyada Waqooyi taasi oo Pyongyang ee ka tijaabinaysa gantaalo balaasiga kuwaas oo xambaari kara madaxyo nuclear. wareedyo ayaa u xaqiijiyay warbaahinta ee qaranka Mareykanka qaarkood in Mareykanka iyo sidoo kale laba xubnood oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo wakiil khaas ah ee ka ahaa sirdoonka iyo sidoo kale mid khabiir amni ah loo diray dalkooda hooyo galabnimadii Jimcaha. tallaabadani oo lagu sheegay inay tahay mid aan looga baranin laba dal oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo waa Kuuriyada Koonfureed iyo sida Mareykanka oo kale. arrinkani ayaa waxaa tuhunka saxaafadda iyo sirdoonada qaarkood iyo kuwa taxliiliya arrimaha sirdoon ay qabaan ayaa waxaa dhalinaya in xubnahani haddii shaqaaqo fudud ay galeen ay ahayd in gacanta loo geliyo ciidamada booliska ah kadibna ciqaabtooda lagu marsiin doono dalkooda waa kolka ugu dhamaado safarkooda. hase ahaatee in la tarxiilo wafdi ballaaran oo ay la socdeen laga reebo laba xubnood oo sirdoon oo si gaar ah loo beegsado diyaarad khaas ah la saaro. arrinkaasi ayaa waxa uu yahay mid ka tuhunka badan dhaliyay. waqtiga la tarxiilaya ayaa ahaa qiyaastii 1 saac ka hor inta uusan madaxweyne Biden booqashadiisa rasmiga ah ku tagin caasimadda Kuuriyada Koonfureed. sida ay tabisay warbaahinta CBS maamulka ayaa baaritaan ku sameyn doona in raggaani ay sarqaan ahaayeen xilliga arrintani ay dhicisay halkii la baari lahaa dhacdada lafteeda. ku mashquulka shakhsiyaadka ayaa ka wacan halka dhacdada lagu mashquuli lahaa. arrinkan waxa uu sii murjinayaa xaaladda saraakiishana laga qabo. wareedyo madax bannaan oo saxaafadda Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed qaarkood ay xiganayaan waxa ay tilmaameen in kulamada ka dhacay gudaha hoteelada qaarkood la tilmaamo in saraakiishani looga shakiyay in ay xataa baalmareen shuruucda dalkooda ee ah la kulmidda shakhsiyaadka aan laga warqabin waxaana la tuhmayaa in ay halkaasi ay kulamo kula yeesheen xubno kale oo saraakiil sirdoon ah oo ka socday dalkaasi Kuuriyada Waqooyi kuwaasi oo gudaha u soo galay dalkan ay wadaagta yihiin colaadda baasanna ay ka dhaxayso Kuuriyada Koonfureed. ma cadda sida uu ku bilowday gacan ka hadalka dhexmaray sirdoonka iyo ninka darawalka ah. labada xubnood ayaa waxa dagaalku uu ku dhacay waxaana ay ku noqdeen hoteelkooda oo ay ka deganayeen magaalada Seoul kaasi oo lagu magacaabo Grand Hyatt. hoteelkani ayaana waxa uu yahay midka ay sida khaaska ah u degaan saraakiisha sirdoonka Mareykanka kolka booqashooyinka ay ku yimaadaan dalka Kuuriyada Koonfureed halkaasi oo safaaraddu ay tahay mid buuxda.
booliska maxalliga ah, ciidanka amniga hoteelka iyo 2 qof oo kale ayaa la sheegay inay kusoo baxeen dhacdada. booliska Seoul ayaa baaritaan ku sameeyay mid ka mid ah shaqaalaha sirdoonka iyaga oo wareystay dhinacyada kale, balse waxay go'aansadeen in aysan xarig sameynin, dacwadna aysan ku furin. arrinkani ayaa waxa uu yahay midka tuhunka badan dhaliyay. kol hore sanadii 2018 kol safar uu halkaani ku yimid madaxweyne Trump ayaa sirdoonka Mareykanka qaar ka mid ah waxa ay shaqooyin fudud ay ka geystay magaalada Seoul. hase ahaatee booliska ayaa la tacaalay dhacdadanina si fudud ayaa loo xaliyay oo lama doonaynin in sirdoonka Mareykanka saraakiil ka tirsan la tarxiilo. tarxiilkani ayaa wuxuu kusoo aadayaa xilli xiisada gobolku ay kasii kordhayso oo dowladda Kuuriyada Waqooyi la filayo in ay sameyso tijaabooyin nuclear kuwaasi oo cabsi badan ay ka muujiyeen dowladda oo wadaagta ay yihiin ee Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale dalka Japan oo isna biyaha xuduudihiisa iyo biyaha Kuuriyada Waqooyi aysan aad u kala fogeyn. waxaana xiisada gobolka oo sare u kacda Mareykanku uusan ku farxi doonin maadaama uu doonayo in uu wajaho Shiinaha, dhanka kalena uu gacan ka geysto sidii dowladda Ukraine ay isaga caabin lahayd dowladda Ruushka oo dagaal ba'an dalkeeda kusoo qaaday. dhanka kalena dalalka Finland iyo Sweden oo doonaya inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO ayaa wajahaya khatar amni oo baaxad leh kadib markii Ruushka laga yaabo in uu faragelin military ama mid dhaqaale uu ku sameeyo. waxaana haatanba lasoo sheegaya in Ruushka uu bilaabay faragelintii dhaqaale isagoo gaaska iyo sidoo kale shidaalkii tooska ahaaba ka jartay dowladda dariska ay yihiin ee Finland. waxaana Finland arrinkani ay ku tilmaamtay mid ballanka bax ah oo Ruushkuna uu ku doonayo inuu ku cuuriyaamiyo dhaqaalaha dalkan yar ee dariska la ah ee dalkaasi Ruushka. Finland iyo Sweden waxa ay codsadeen inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO, hase ahaatee Turkiga ayaa ka hor yimid dhacdadaasi. madaxweyne Erdogan oo hadlayay waxa uu tilmaamay in marnaba aysan aqbali karin in dalal taageera kooxo ugu yeera argagixiso ay ku biiraan gaashaanbuur uu qayb ka yahay. waxa uu tilmaamay Finland iyo Sweden waajib inay ku tahay inay ka garbaxaan Turkiga haddii ay doonayaan inuu aqbalo ku biiritaankooda gaashaanbuurta. arrinkan waxa uu kusoo aadayaa xilli ku biirista NATO ay ogolaanshiyo uga baahan tahay dhammaan xubnaha qaybta ka ah kooxdan, waxaana 30 dowladood 29 ka mid ah haddii ay ogolaansho ka hesho. hase ahaatee hal xubin uu diido, arrinkaasi uu caqabad ku yahay ku biiritaankaaga ilaa aad iska xaliso xubintaasi ama ogolaansho ka heshana aysan ahayn mid xaqiiqo ah ku biiristaada. oo xeerka aqbalaada xubin cusub oo kamid ah gaashaanbuurta ayaa waxa uu qabaa in dhammaan xubnuhu ogolaansho laga wada helo. madaxweyne Erdogan waxa uu tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin. waxa uu sheegay in sanadii 2019 uu naqbateeno dalkiisa uu kala kulmay dalalka Sweden iyo Finland iyaga oo ka jawaabaya kolkaasi faragelin military oo dalka Turkiga uu ku sameeyay galbeedka iyo waqooyiga dalalka Syria iyo Iraq, kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay fariisimo ay ka sameysteen kooxo uu ku sheegay inay yihiin argagixiso. waana kooxo PKK iyo YPG la kala yiraahdo, kuwaasi oo ah kooxo kuwa Kurdiyiin ah kuwaasoo lid ku ah siyaasadda dowladda Turkiga ee ah in goosatada aan loo ogolaanin kooxaha Kurdiyiinta iyo inay yeeshaan dowlad.